بسم الله waxaanu maraynaa marxalad kala beer ah oo ay waajib nagu tahay in aanu dul istaagno qiimayno wixii la soo maray halka loo socdo isla markaana aanu ku xisaabtano khayraadka iyo fursadaha aanu haysano ee aanu ku gaari karno yoolka aanu tigsanayno maanta gobolada bari iyo mudug waxa fariisimo ama saameyn ballaaran ku leh kooxaha argagixisada ee Daacish iyo Al-Shabaab oo ka soo weerarada gaadmada ah ee ay ku hayaan ciidamada jooga aagaga hore si joogto ah magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo ugu laaya miida shacabka sida culimada, ganacsatada, dumarka, dhalinyarada, saraakiisha sare ee ciidanka iyo hoggaanka dhaqanka. Dhalinyaro badan oo niyad jabtay ayaa tahriibay in badan oo ka mid ah waxay ku go'een saxaraha iyo biyaha badda dhexe. in badan oo kale waxa ay ku jiraan gacanta arxanka daran ee Magafe taasoo kalifta in hooyooyin badan ay u xaraashaan hantidooda guurtada ah ee awalba iska koobnayd. waxa iyagana sidoo kale xaalad aad u liidata ku sugan duruufaheena dhaqaale, horumarineed iyo daryeel bulsho. intaas waxay tusaale u yihiin sare mid ka mid ah labadii mabda ee aabbayaashii iyo asaasayaashii Puntland ka duuleen. waxaan weli laga mira dhalin hadduuba gabi ahaan ballumin doorkii hogaamineed ee aan ku lahayna oo dayac badan ka jira hanaanka geedi socodka federaaleynta iyo dib u soo yabyabidda qarannimadii iyo hay'adii Soomaaliyeed. kanina waa mabda'ii labaad ee aabbayaasha asaaska uga dhigeen dhismihii Puntland. haatan waxaanu taaganahay marxalad kala beer ah oo aanu ka leexan karno wadadii khaldaneyd oo aanu miraheeda maanta hayno una weecan lahayn jihada saxda ah ee horumarka, xuquuqaha iyo baraaraha. waa arrin cayig ku ah garashadeena dhinaca kalena abaaldhac iyo ballanbax ku ah Allah naga karaameeyay inta kala noolaha in aanu ku celcelino khaladaadkii hore misana aanu filano natiijo ka fiicantii hore. suuragal ma aha in aanu abuurno tiin iyo bacaroor isla markaana aan filanno in aanu gurano timir iyo cambe. nasiib wanaag dhibaatada iyadu ma aha ugub, sidaa darteedna kuma khasbanin in aanu hindisno xal cusub. waxaanu taaganahay xilli doorasho oo khaladaad badan lagu sixi karo, khaladaad noogu kacay kharash badan oo uu dhiig ugu qaalisan yahay, sharaf, cizi iyo karaamana ugu xanuun badan yihiin. waxaanu maraynaa marxaladaha dhigeen adduunku ku saxan khaladaadkooda. waxaanu taaganahay marxalad aanu ku samayn karno hoggaan mudduwi kara toobiyaha saxda ah. xalka mushkiladdu maaha mid ku jira shakhsi ama hoggaanka mucayanka ah ee markaa la doorto. ogow xukunka iyo mulkiga Alle ayaa quraankiisa ku sheegay in uu qofku doonana siiyo ku doonana ka qaado. xalku waa mas'uuliyad wadareed loo maro qaabab horey loo soo tijaabiyey oo u shaqeeyay dhammaan ummadaha horey u maray. xalka mushkiladdu waa in la helo dowlad ay hagaan hay'adaha dawliga ah oo uu mid waliba qabsado shaqadiisa sida ay u qeexayaan shuruucda dalka oo uu ugu sarreeyo uguna mudan yahay dastuurku. magacaygu waa Cabdisalaam Salwe. waxaanan u taaganahay in aan inta ila dareenka ah kala shaqeeyo dhaqdhaqaaqa kala bayr oo ah kacdoon bulsho oo hubinaya in aynaan ku celin khaladaadkii hore ee lagu soo xuli jiray xubnaha hay'adaas halbowlaha u ah nidaamka dawliga ah ee daruuriga u ah xaqiijinta mabaadi'da ay u taagan tahay Puntland iyo raacidda toobiyaha saxda ah. yoolka guud ee dhaqdhaqaaqa kala beer waa in la helo barlamaan xalaal ah oo marka horena dooran kara hoggaan karti leh, marka dambena la xisaabtami kara hoggaankaas kuna xisaabin kara mas'uuliyadiisa iyo barnaamijkiisa siyaasadeed ee lagu doortay. si loo gaaro yoolkaas dhaqdhaqaaqa kala beer waxa uu baraarujin doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee siyaabaha kala duwan ugu lug leh masiirka iyo maslaxadda ummadda reer Puntland. waxaan tiigsanaynaa in dhalinyarada oo ah 70% saameynta ugu badanna kala kulmi doona natiijada ama cawaaqibka siyaasadda hoggaanka la doorto in ay kaalin libaax ku yeeshaan hanaanka lagu soo xulayo iyo weliba ka mid noqoshada baarlamaanka. waxaanu hubin doonaa in culimada,
aqoon-yahanka xirfadleyda sare iyo weliba ganacsatadu kaalin libax ka qaataan hanaanka soo xulidda iyo ka mid noqoshada baarlamaanka. waxaan la dagaalami doonaa in baarlamaanka ay soo galaan dad shaqo doon ah oo masiirka dadka ku cabira baahidooda shakhsiga ah. waxaan hoggaanka dhaqanka yararkiisa kala duwan axdi kula geli doonaa in alle hortii iyo taariikhdaba ay u hiiliyaan dadka ay mas-uulka ka yihiin una soo xulaan xildhibaano ehel u ah xaqiijinta masaalixda sare ee caamka ah ee ummadda Puntland iyo guud ahaantan ummadda Soomaaliyeed. waxaan tallaabo walba u qaadi doonaa golo walban u joogsan doonaa in baarlamaanka soo socda ay galaan dad uu riixayo dareenku oo aanan lagu gorgorin karin lacag qiimo kasta oo ay leedahay, sida waalidiin ku waayay ubadkoodii gacanta al-shabaab, ku lumay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya, ama ku haligmay biyaha badda dhexe. dhalinyaro waalidiintoodii soo barbaariyey ku waayay gacanta cadowga dadka. xirfadleyda ay ka mid yihiin dhakhaatiirta caafimaadka, injineerada, khubarada dhaqaalaha iyo guud ahaan adeegayaasha bulshada. ganacsatada hantida badan geliyey dalka ee la dhiig baxaya saamaynta amni darro iyo nidaam la'aanta ka taagan dalka. qurba joogta leh khibradda shaqo ee ku daalay dibadda kuna tallamaya in ay dalkooda iyo dadkooda ku biiriyaan khibradda ay ka soo kasbadeen bannaanka. walaal ma isleedahay fariintani way ku khusaysaa oo waad ka qayb qaadan kartaa dhaqdhaqaaqan? dareen ma kuu hayaan dhallinyaradeenna badda iyo saxaraha ku baaba'aya iyo hooyooyinka gablamaya, mase ku fakeraysaa sidan waa loo dhaami karaa, nolol u qalantana waa loo samayn karaa? xanuun ma kuu hayaan haldoorkeenna sida macno darrada ah loo leynayo, mise isleedahay waa la badbaadin karaa kuwa haatan oo aan hadlayno cabsida iyo cagajugleynta lagu hayo? ma tabaysaa doorkii taariikhiga ahaa ee dadka reer Puntland ku lahaayeen taariikhda dalka, ilaalinta sharafkiisa, dib u soo nooleyntiisa iyo ilaalinta qarannimada iyo sharafka guud ee ummadda Soomaaliyeed, kuwa oo ugu dambeysay naf iyo maalkii loo huray dhisidda federaalkan? haddaad mid, qaar ama dhammaan su'aalahan aad uga jawaabto haa, walaal ku soo dhowaada dhaqdhaqaaqa kala bayr. masiirkaaga cidnaha uga martay, marna ma ogaan kartid awoodda iyo waxa aad qaban karto ilaa aad ka tijaabiso. maanta ayaad ceel joogtaa oo aad haysataa fursad aadan berri haysan, lana hubo in aad ficil la'aantaada uga shallaayi doonto. aamin oo ku kalsoonow awooddaada. fadlan u jawaab damiirkaaga, kuna soo biiri tabartaada iyo xigmaddaada nooc walba oo ay tahay dhaqdhaqaaqa kala bayr. allaa weyn, ninkii aaminaa awood leh.